هذا waxaan sii daynaa muusimkana sii daynaa insha Allah waxaan soo eegi doonaa meelankii aad badan iyo raadada badan yaalaan marka insha Allah waa soo wanaagsan السلام عليكم توصل هذا وصل للموسمكي ساكا في سوامير في aad qurux badan xagana kale waa freedom fighters ayaa ku qoran waa freedom inta dadka xorriyadda u soo dagaalamay oo kala qoran marka hero guud marka museum wakaas meel badan oo duwan buu leeyahay insha Allah inta waan soo arki doonaa I think office tii wakaas macluumaad laga qaadanayay xogta ku qoran marka wakaas no smoking no drinking no activities keep your mobile silent يعني marka xataa khayra iyo hawl lama ogola marka dhammaan xogta marka guud marka looga baahan qofka inuu ilaaliyo oo xogtaas weeyaan aan hore u socono marka waxaad arkaysaa dad badan kala duwan baa jooga halkan oo kale waa farshaxan aad u qurux badan weeyaan saa la ka arkaysaan farshaxan aad u qurux badan runtii dadkii waddanka u soo halgamay iyo yani waddanka meeluhu soo maray waxyaabahaas oo dhan baa marka halkaas Pakistan movement hore u socono ولي واحد كلشنا بوخشدينا موسم بوخشدينا كلشنا كنت يوم مال رياليزيشن marka dadkii xataa waxay u sameeyeen hab kala duwan bay u sameeyeen marka mid walba waxa ku hor qoran taariikhdiisa iyo wixiisa ku hor qoran iyo xogtiisa ku hor qoran kaalase hadda waxaan soo gaarnay waa qaybta ugu horeysa weeyaan inta saarka ka arkaysan waxa weeyaan arrival of Islam in the subcontinent yani qaarad weeyaan dadkii diinta soo gaarsiiyay marka halkaas wax ku qoran waxa aad looga sheekeynaya Maxamed bin Qaasim oo marka 712 sano kadib dhalashadii nabi ciise marka yani xaggan ama aadan Pakistan iyo intan Asia dadkii diinta soo gaarsiiyay isla markaana aad u soo fidiyay marka nin aad yani runtii agtooda qiimo u leh ayay marka runtii xogtiisa u sheegayaan waxay maanta in badan xoraaya akhno ama yar faana kadibna marka ay soo gudbinaa laakiin muhiimaddu bay ka qaadana halkan waxaad arkaysaa boom stand duwan mid walba runtii wuxuu leeyahay waxbay ka tarjumaysaa markaas marka ay tin malaha carabi uga jeeda kaasoo kale kan oo kale waa arkaysan ka muuqata kaas kawaani hore seefan lagu dagaalami jiray marka seefii baa aad uga muuqda halkan marka qaabkii loo fariisan jiray waxyaabihii la isticmaali jiray sanamyada waxyaabaha la caawin jiray dadka qaar ay caawin jireen sidoo arkaysan kaas kan oo kale waa qolo ka filaya tin Buddhism iyo waxyaabaha weeyaan iyo dadka caawin jireen ama dadka ay in qoladaas oo kale isla Buddhism ka qayb kamid ah weeyaan markaas dharkoodii gaarka ay liimiga bay xiriyiin halkan sadka arkaysan dadka hore aagayada isticmaali jireen iyo waxyaabaha kala duwanaa weeyaan kaas intii waa meel aad farshaxanteeda loo dhisay dadkii runtii juhdi badan iyo hawl badan la geliyay insha Allah taas yani qayb kasta waxa ku hor qoran yani dadka waxyaabaha laga tarjumayay iyo sababaha marka yani xogta kaas oo akhriin kartaan ka farshaxan runtii aad u qurux badan weeyaan ka diimi kala duwanaa oo dhan iyo dhaqamada isticmaali jiray iyo waxyaabaha soo dhaba marka ku yaala meesha حتى كدوناي أما فرقها نقطة صوفيين هذي نقطة حيابها استعمال شيء وحيابها كيف عشان شرين مثلا the role of Sophia في Sufism in subcontinent صوفيا ولا يقعد جروب اللي صوفيا قريبة ها صوفيزم قريبة كدون صوفيا بالليهين the first war of independence هذا كاس يضل في بدي تقيم قاطي كوسيدان قاطي كتكي يضل في تقيم قاطي يعني كقيم قاطين هب هاو كلا دوان سيفادين أو فرضي استعمال جرين يو مكا هو بي كلا دواناي وراس استعمال جرين هالك قولي كده جرين أما هالك مر لريد جرين كل لو جرين ما شاء الله هالك مكا واحد قرن سيد أحمد خان مكا وانين كمل الردي وانتي دلكن كل وحوص وقبتي حرتي أساسين إلى آخر النوع حوجا أيوة بعدين مكا اللي كسر حرتي زهرة عيكو طعمه صار كان حسانة واستعجين كرتان ولا خسن كرتان وقدر الدراسة إني كي دينية مكاس إنك حاجة مثلا مساج ديرويان أركب واحد إقبال إن كوردوبا مسكيو مثلا مساج بي أي مساج كل عانا أي مكان كصوب سمية ما حرف مثلا وسمية مثلا وقف بعيد سنة تلا يتبديان من هو ما راح قف فريم يا هاي كسمية مثلا ضوبا أي كسمية دار قف عادي مو سابنتي ركودي بيقوليين كان مثلا مثلا وأدو لا يابط لا ممكن مثلا وحويان علماء محمد إقبال وكاس
إن شاء الله إقباليس أدرس إن ذا الأهداف هي هاد كان هالكان يدك آخرستا بالخسانسان ويدك I think مكا على مس realize okay مكا حاجة هو بالي بوغارت إيو درتي وحيابي الاستعمال شر إيو مكا وكاس فاسيل وفريسين شري يعني بوغارتي الاستعمال شري انتو بوغارتي يسيدو دي وقران كا فرتو دي بدل قران تورجولي صورانتا كاين كيس سمين شري marka makhtuudaadkoodii qoraaladii marka laga hayay dadkii hore ee turaadkoodii marka dad runtii waxaan arkaynaa turaadkoodii aad u ilaaliya weeyaan iyo marka aathaaartooda aad u ilaaliya runtii wixii ay ka hayeenna si fiican oo qurux badan u habeeyey maasha allah hadda waxaan ku suganahay waa museumka dhexdiisa ku suganahay runtii muuqaalo aad u qurux badan ma soo aragteen markay soo direen museumka ilaa halkan oo imka dhex joogno runtii museumka marka saa u soo dhasho way kala qaybiyeen qaybo kala duwan bay ay u qaybsan tahay qaybo waxaa jira ay markaa dadkii culimadoodii iyo diimihii laga caabudi jiray yani xaggan iyo qaaradan iyo subcontinentka gaar ahaan iyaga xaggooda intan hindiya iyo markaa bakistan iyo bangladesh intaas diimihii laga caabudi jiray oo markaa mid walba sawir ka soo qaaday dadkii ugu waaweynaa diimahaas runtii mas'uulka ka ahaayo ama dadku ay u daba fadhiisan jireen oo sawiraan ay ka sameeyeen taariikhdooda inta ay gaar u qoreen waxaa jira qayb ay ku xusayaan dagaaladii kala duwanaa ee dalku soo maray iyo xoreyntii dalka lagu sameeyey ama guumeystii ha noqoto intii ka dambeysay markaa dagaaladii dambe uu galay nin walba markaa waxay taalay u sameeyeen ama hab yani way qorqoreen ama dhagax waxay ka sameeyeen kadibna waxay markaa shay iyo rinji bay mariyeen dhar bay u geliyeen markaa hab qurux badan oo qof caadiga ah wadisida ay markaa ka dhigeen waxaan arkaynaa halkan oo kale ama ku jirno kale waa halkan waa waxyaabihii ay ka tageen haddana noqoto dharkii la isticmaali jiray haddana noqoto markaa yani qalabyada kala duwanaa ee buugaagtii haddana noqoto waxyaabihii la midkaa weeyaan saanka arkana ma wisada isticmaali jireen koofiyada isticmaali jireen buugaagtii kala duwanaa ee qoreen nowdkii markaa la samaysan jiray sawiraantii ay iska qaadeen waxyaabahaasoo dhammaan runtii halkan lagu nidaamiyey markaa qaybaa jira markaa waxyaabihii waaweynaa la isticmaali jiray markuu meystay waxyaabihii ka tagay oo kale ah oo seen halkan arki doono oo kale meelaha markaa gawaarida isticmaali jireen oo kale dadkii xataa usoo halgamay meeshan yani waxyaabihii kala duwanaaye marka ay kula dagaalamay guumeystay ay kula dagaalamay marka runtii meel aad qurux badan waana museum runtii arkaya si fiican loo diyaariyey sana lagu rumo museumada ugu yaryar museumada ka waaweyn ta hoose noqon doonta museumkii runtii qaybo aad u kala duwan bay leedahay shirkadii baan nasiibtay oo ah in xilligii la xidhayay aan ku soo eegnay kolley internetka ka soo eegnay xilligii la xidhayay 3 saacadood ayaa ka harsanaa laakiin ma garanay taymka miyay bedeleen sida internetka ku taalay waxbay ka bedeleen baa laga yaabaa marka inta halkan kale waa qayb ka mid ah qaybaha aadka qurux badan leh fadhiyadii la isticmaali jiray laga soo reebay ama waxyaabaha ay ka tageen runtii ama ka ofiisadii la isticmaali jiray ayay markaa kasoo qaybii kala duwanaayeen la fadhiisan jiray oo runtii meeshan meel aad qurux badan runtii ah markaas aad arkaysaan iyo dadkiisa halkay u fadhiisan jireen laga sameeyey markaa taalooyin oo kale laga sameeyey markii la isticmaali jiray marka maasha allah runtii aad bay u habeeyeen fi qaa'id acdam كقائد أزل عارفين مين هاي مال أودي عسوي يعني حفيز في ماله هي من السنة فريدة تكلم على سومي هي مركا ماله هي قف كورتيس هي ألعابي سبحي سبحي يشري هذا آدو قيمة هي مركا متفرع على آدو قيمة هي ورمتي يعني حاجة آدو ديالي نسكسون لسان هذا إن شاء الله هذا ما حسوق هرني لاهور ريسيشن كم حلي قبل كلاهور أساس كسوقنا يسمين ولا صلدي سيدي كيوم تصور كنا ونيكي لورناي قائد أزم أما نكي لعك باكستان كسرني ودكتورها الجماعة والجميع تحضر باكستان سوجوجها مدة واحد كم وقتها جاندي جناح أما جناح جاندي وها نكي لتجارتمي أما خرجوجو أها مركي دولة باكستان أي خلاف كأذك أي كلا الحين يسمى كلا جوائية ودن كإنديا كاسو مثلادو أها ودن باكستان نكا كلا دين مقارنة نكي إنديا مثلية أو سجنا دين مقارنة جاندي سوما جاندي مركا شركة جدًا أما صور كشركة إنجاز مغلقة وباكستان بروفنسي بلاندي أما مدينتي جوبلة باكستان أو لو مدينة أي جوبلة دي لما استمع باكستان حلقة مذوبة يعني جوبلة أنت جوبلة حتى كده سنت هاي حلقة مذوبة سمينا أي سيد الكلام مقطع ووقت دير واحد سوق جديد دولة أساس كده أما حلقة مستحي كبحين سوي صور كده الكلام مقطع وعزادة أنت بدل نسي وحلقة أي قاتل لماذا صح هذا المقع يكون سيني
xaggaana waxaa idinkaga muuqataa dhaqamadii ay lahaayeen xilligii qadiimiga ahaa marka aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan aragno ama dhaqamada ay soo mareen ama gumaystaha ha noqdo xilligii ka horeysay ama xilligii ka dambeysay aad iyo aad waa mahadsantihiin midda idiin muuqataa maxamed cali janaax waa dadkii xukuumadda ama ha noqoto looyarnimada ama ha noqoto soo xukumidda waddanka Pakistan ama dadkii ugu sareeyay ama ugu weynaa ama ugu qiimaha iyo mugga weynaa ee Pakistan soo maray isagoona ka mid noqday dadkii u soo halgamay waddanka xorriyadiisii ama inay noqoto waddan u taagan awood iyo maanta muuqata oo ku jeeda sida kaga muuqata waxaa loo sameeyey muuq ama maxaa la yidhahdaa sawir aad u qiimo weyn maxamed janaax haddii la yidhaahdo ha laga sheekeeyo ama ha laga hadlo wuxuu noqonayaa halgamaa qof loyalty-ga ama maxaa la yidhahdaa sinaanta cadaaladda aad ugu xeeleeraa dadku ama taariikhdu sida xusayba waddankana wax badan usoo qabtay liidarnimadiisii ama maxaa la yidhahdaa hogaamintiisu aad wax u qiimo weyn ay ahayd waxaa kaloo halkaa idinkaga muuqda dadkii familiga ama ku dhawaa ama soo maray taariikhda waddanka Pakistan qaybo ka mid ah iyo ayagoo la xusayo awoodda ama nidaamka ay soo martay xilligii ay ka soo baxday ama xorriyadda kadib nidaamkii ay heleen ama systemkii ay ku dhaqmi jireen waddanka iyadoo sawirada ay kaga muuqdaan ay caddeynayaan inay ahayd step by step ama wax la soo maray oo jaranjaro ay ahayd marka taariikhda Pakistan wax aad weyn waaye sawiradan iyo museumkan iyo meeshan aadka u qiimaha badan ee aan maanta kaga soo duubnay videoga wax lagu soo koobi karay ma ahan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inta in ka badan in taariikhda Pakistan aan xuskeeda aan sameeyno haddii halkaan bal aan fiirino waxay idinkaga muuqanayo noocyadii dadka bulshada u dhaqmi jireen qaabkii isugu xirnaayeen dadkii u ahaa maxaa la yidhahdaa madaxda u ahaa waqaali asalka ka mid yahay isagoo sawirkaan idinkaga muuqdo محمد الحاجة محترم فاطمة جناح قبل اللورنا قائد أسد صور كان يكلم مغضى حاجة عن واحد يكلم مغضى قائد أسد بيسوي صور كلا بيسوي قاضي وطبعا مركي وباكستان مدينة أو كل من تيدي دت كيدي حاليا شعب كيدي وها هل كان واحد يكلم مغضى دت كي سوبلوت عم حلي سوبلوتي وكب وقضي كامب في على كراجي صور كذا كامب إنسان وكامب في على كراجي اللي هو رفيجي هالكاس كوب وقضي أما تدرس بلوتي عنه وقضي كوب بنجلاديش ومركز الضعي ودي ودن كذلك الضعي نقضي إيوه ضد كمركز هندي باكستان خلاص يجمع مركز تاريخ باكستان لبس كوب كرايو لكن عرجينا إن شاء الله هذا هو مسألة وأجر كي أما خيالها استعمال جرين حلقة جميسته وودن كتير دورنا هاي وحا جميسته وها إنجليزي حلقة جميستها وحياليه الاستعمال الجري والصورات اللي كانوا مغضاء وجانيت كاستعمال جري حلقة قيبت اللي قد وانجلي عم صور اللي كانوا موجي وصور عان تبع وقديمي وحلقة حضارتي أي سنسوق جاري فور ثانا واحد اللي كانوا مغنسا كسر ماشي حرنتها لكن تصور كأكثر واحد اللي كانوا مغنسا خاف فيها يوصل من سناين فرديه يوم ضدكي أسكرتها marka waa wax aad iyo aad u mug weyn in taariikhda waddanka la helo wax laga duwan geliyo markii loo fiiriyo wadamada qaybtood Pakistan waxa lagu amaanaa ama lagu maxaa la yiraahdaa lagu sheegaa inay tahay wadamada xadaaradda ama waxyaalahan taariikhda la duwan geliyo wadamada ugu heer sareysa ay ka mid tahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah intaas in ka badan inaan kala soo socodsiin doono Pakistan iyo taariikhdeeda historygeeda hore aad iyo aad u mahadsan إن شاء الله thank you الله حافظ السلام عليكم thank you sir إن شاء الله الله حافظه muuqaalkeena maanta iyo fulogeena quruxda badnaa aan ka soo duubnay markaa museumka iyo doomkii iyo fiyogeedii aad u qurux badnaa waxaan rajaynayaa insha Allah in cajibi doono inta ku tumanna muuqaalkan lamida ama yani doomo kale oo dalxiis ah insha Allah tagi doono inoo soo socda waxaan kaga tegayaa dumshu fi ricaayat Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh